oo saddex meelood geyiga Soomaaliyeed meel ah oo bad iyo bariba leh waxay maamulkeeda gaarsiisay meel kasta cirif kasta oo Puntland ah marka laga reebo dhulalka kooban ee laga haysto oo ay ka mid tahay magaalada Laascaanood waxay awood u leedahay si dadka magaalada Laascaanood gudahooda loogu baabi'in khilaafka dadkeeda qayb ka mid ah ay qabaan aan xabad lagu muquunin waxay diyaar u tahay xal siyaasadeed iyo xal askari marka loo baahdo labadaba inay ku wajahaan sidoo kale Puntland waxa ay diyaar u tahay in ay danaha dadkeeda meel walba oo uu jiro ay u gasho waxaad ogtihiin Puntland 24 sano kadib waxay cagta saartay siday maamulka dadka ugu daadajin lahayd siday dareenka dadka ay u gaari lahayd siday dadku waxay doonayaan codkooda ay u dhageysan lahayd sidoo kale Puntland waxay ku jirtaa doorashooyin waxay ku jirtaa registrationkii ama diiwaangelintii si loo gaaro dadku inay codkooda danahooda iyo doonistooda ay ku jawaabaan Puntland waxay mar qura awood u leedahay inay qabato inay dadkeeda difaacdo inay horumarka bulshadeeda ka shaqeyso mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo shaqooyinkii dalka si dabiici bay u socdaan awoodda dawladuna way ku filan tahay inay ka jawaabto su'aal kasta oo bulshadeeda ku timaado waxaan u cadeynayaa bulshada reer Puntland in ay dadkoodana difaacaan doorashada ay ka qayb galaan shaqooyinka dawladda wadaan kuwooda yoomiga ay ka shaqeystaan una diyaar garoobaan diiwaangelinta dalka oo 5 bisha dhacaysa si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah sidoo kale tana ciidamada Puntland waxaan farayaa inay ilaaliyaan sharafka iyo karaamada dadka meel kasta ay joogaan haddii yihiin kuwa Laascaanood jooga iyo haddii yihiin kuwa gobolada kala jooga shaqo walba oo markaa jirtaan ay heegan u ahaadaan hadday tahay diiwaangelinta iyo hadday tahay difaaca dalka iyo hadday tahay horumarka ka socda dalka oo ugu horeyso sugidda iyo xasiloonida amniga dalka arrimahaas waa arrimo isku xiran oo ah shaqada dalku ay u igmadeen dadweynuhu dawladda Puntland